madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeyd oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inuu ka degayo magaalada Muqdisho isagoona u socdo hawlo shakhsiya lama saadaalin karo in Professor Cali Khaliif Galeyd soo noqon doono iyo in kale maadaama professorka aan intii ugu dambeeyay uu si weyn uga cabanayay heshiiska u dhaxeeyay Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo waa mahadsantihiin inaad fursadan ay siiseen waxaan safar degdeg ah soo galay maanta waxaan diyaaradda Addis Ababa aadaysay yaan raacayaa maalin baan joogayaa Addis Ababa ka bacdina insha Allah waxaan ku tala jiraa inaan magaalada Muqdisho u gudbo midna dadka qaarkood oo dhageystayaashiina ama daawayaashii inayba ku yaabaan oo yiraahdo war ninkaas goormo halkaana ka fadkudiyay marka arrin degdeg oo personal ah oo shakhsi ah ayaa igu soo korodhay guddidii hawshan aan wada wadnay oo ilaa 4 sano hadda ugu dambeysay ku dhawaad aan wada wadnay yaa kala maqan dibadahay kala jirjiraan week 10 cashay maqnaanayaan anna intaasana sidii uga faa'iideysay ay maqan yihiin hawlahaagan personalka ah shakhsiga ah magaalada xamar la yiraahdo Muqdisho la yiraahdo ka soo dhamayso hawshaas markay dhamaatana halkan aan insha Allah ku soo noqonayaa hawshaasuna meel fiican bay runtii noo maraysaa anigu nin warkiisa cadaystaanahay iyadoo aan Hargeysa joogo yaan oranayaa dadaal badan baa maamulka iyo annagu Khaatumo haddaan nahay aanu gelinay nasiib darro markan waa noo suurto weyday taa inta waa ku aadaa haddayna jirtana waa oran lahaa laakiin waxa hadda soo galay runtii meel fiicanna waa noo maraysaa arrin in badan ay igu rafanaysay haddana ay igu kaliftay inaan tago aan xamar u tago yaa jirta waxaan idinkana idinku yeeray in khaasatan dadka ay dhageysanaya ama Soomaaliland ha noqdaan ama khaasatan reer Khaatumo ha noqdeen hawshii meesha fiican bay noo maraysaa safarkaasuna waa garan karaa nin hadda waxaan u malaynayaa muddo 5 sano ah xamar ma tegin waaga hore aan ka imi waxaan u malaynayaa inay ahayd bartamihii 2014 meelaha inta ka bacdina ma tegin meel aan magaalo de kulley hadda waxa iga galayna waxa aniga ii gooniya na weeye dadkuna in xamar waa dal Soomaaliyeed kulley hawlaha shakhsiga ah iyo kuwa kalaba dad kale waa kale yihiin oo reer Somaliland laakiin anigu markan taan u aadayaa waa hawsha ii gaar iyaka oo reer Somaliland iyo annagu Khaatumo waxbana iskamaanaan hakranayn laakiin mideen amar alumba iska noqotay weli nooma dhamaan waxna iskamaanaan hakranaynin laakiin waxaan aad ugu rajo weynahay hadda inuu noo dhamaado in badanna waa la sugayay labada dhinacba waa laga sugayay waliba dadka reer Khaatumo wax weyn bay heshiiskan ugu fadhiyaa kuwii xitaa Khaatumo ka soo horjeed midda ay hadda saadaalinayaan waa heshiiskan oo dhamaada oo marka dadkana marka iyaga laftooda heshiiska laftiisa waa jecelahay waanuna Cali iyo rag kale oo hore aan reer Khaatumo ba nala ahayn waa ku tala jirnaa inaanu tabliiq siyaasi xaqaana ka gallo hawshii siday ku fuli lahayd iyo dadka looga dhaadhicin lahaa inuu heshiiskan intii ay sugayeen uu su'aalaha isweydiinayeen dhan ka jawaab sidoo kale Professor Cali Khaliif Galeyd waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay heshiiskii u dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo heshiiskana ku maamul kulmiyaan la galay muusana gudoomiyaha kulmiye iyo markaana ahaa haddana waliye marka kulmiyana majority baarlamaanka kulmiya maamulkii haya arrimo farsamo yaa runtii iyo maamulka cusub iyo dhibaatooyin badan oo iska jiray iyo arrimo culculus aan ka wada hadlaynay marka waxaan qabaa Musabbixi inuu isaga laftiisu horena xogna u hayay oo la socday heshiiskan inay danta Soomaaliland inta Khaatumo ku jirtana waa ku qanacsan yahay marka wax walwal aan taan ka qabnaa Maxamuud Fantastic iyo Cabdi Germany telefishinka caalamiga Sahan magaalada Hargeysa.